بسم الله الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وراليال marka koowaad waxaa mahad iskale Allah subxaanahu wa tacaala ina soo waafajiyey khayrkan meeshan inaan isugu nimaadno ka wada hadalna danahanaga aan hagaajino oo aan saxno wixii khata oo dhaxdanada yaalay isqalbi xaaranno allaha inta noo yasira ku mahadsan subxaanahu wa tacaala bacda xamdilaahi tabaaraka wa tacaala waxaan u mahad celinayaa beesha guud ahaan hoggaankeeda sare oo ugu weyn yahay suldaanka iyo garbihiisa iyo cuqaashan iyo nabadoonadan kale meesha fadhiya sidoo kale lajnadii muddadaba waday hawshan iyada ah turxaan bixinta is-urxaarashada iyagana waan u mahad celinaynaa ilaahay waxaan u weydiinaynaa subxaanahu wa tacaala miisaankooda xasanaadka ilaahay u buuxiyo inay acmaasha ay sameeyeen iyo juhdiga ay bixiyeen ilaahay uu ka abaaliyo subxaanahu wa tacaala walaalayaal maantayto waxaa farxad weyn ah meeshan waxaan isleeyahay beeshii reer biyimaaleed cid ka maqani ma jirto 80 qofaad meeshan ku fadhidaan 80kiinaas qof maantayto waxaad qaadaan ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa biidni illaahi subxaanahu wa tacaala sidii loogu talagalay inuu u fulaayo waxaan ilaahay ka rajaynaynaa subxaanahu wa tacaala madashan inay noqoto tii ugu dambaysay oo bixisa sharka iyo balaayada dadka baaska wata ay soo dhex dhigeen wilaayadan iyo dadkan muslimiinta ah walaalayaal annagu waxaan u taagannahay ummadda muslimiinta u adeegideeda adinkuna waxaad ka mid tihiin dadkii muslimiinta ah ee wilaayadan deganaa xumaan gaar oo hay mujaahidiinta idin qabaan ma jirto keliya meeshan sharwada ka shaqeeyay oo balaayo ka abuuray maanta ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nawaafajiyo dabka isaga inuusan dib dambe u horin ninka sharka watana inaan gacan bir ah isaga qabanno oo naftayada aan ku bixinno oo dhiiganaga aan ku bixinno waa go'aan kama dambays ah mujaahidiintu marka hore waa u taagnaayeen murtad iyo la jirkiisaba inay la dagaalamaan maantayna idinkoo waalidkii ah indhihii beesha ah hoggaankii beesha ah yaad nala qaadateen waxaan rabnaa inaan sharka isaga ah ee balaayada meesha ka wada ee raba ummaddan muslimiinta ee hadda taariikhdeeda laga sheekeynayay iyo dadkan muslimiinta ah inay wada noolaadaan diidan war diyaar ma unahay inaas dhaafino ilaahay waan u marqaati gashanaynaa arrinkaas subxaanahu wa tacaala walaalayaal 80kiinan oday ee meesha fadhida maantayto hoggaanaad leedihiin oo idinkugu weyn yahay suldaanka xibnihii la shaqaynayaa halkan ku qoran oo idinka yimid oo idinka aad noo soo gudbiseen waxa maanta heshiiskaas idin saxiixay 80kiinaasna waa intii idinka indhaha iyo hoggaanka idin ahayd arrinku sidaa ma yeemisa ma ah jazaakum allahu khayran meeshan waxaa ku saxiixan kow suldaan walaal cabdi cusmaan oo suldaankii beesha ah ninka labaad waa maxamed cusmaan owyaale ninka saddexaad waa sheekh xasan abuukar ninka afaraad waa cabdiraxmaan maxamed xasan ninka shanaad waa cabdiqaadir abuukar yarow ninka lixaad waa xuseen xasan gamaayo ninka toddobaadna waa xaaji cabdi maxamed intaa ma yihiin jazaakum allahu khayran intaa walaalayaal ayaa horta idin saxiixday warqadaha iyaga ah idinkuna garab baad ugu ahaydeen oo aad ku garab istaagteen hadalkiinana waan maqlayn walaalayaal marka waxaan rabnaa mid horta ka fiyoobaada oo qalbigiina marnaba yeelan gelin mujaahidiinta ahdaaf gaar ah ka leh beesha biimaaleed camalkan iyaga ah marti kuma aha way ku jiraan wiilashooda ku jiro ma garanaysaan waa beel la garan hayo oo taariikh leh camalkana wax ku leh maanta dad aan isbaranayno oo aan meel isugu yeeryeerayno oo aan leenahay hadda la aduudahaya ama la abuurayana ma aha waxaan rabnaa walaalayaal marka dhibkan meesha ka dhacay iyo dhibaatadii dhacday sabab cidda u ah waad garanaysaane waa waafowga halkaa fadhiya iyo inta ku garab naban haddaan maalinkii iyaga ayna soo galayaan biyo markay kugu soo socdaana la iska moosaaye aan intaan gacmaha isqabsanno gaayo xataa waxaan idiin gaarnay war annagaa heegan ah oo idiin taagane na tilmaama meesha u ardaalka soo galahaya noo tilmaama annagaa qabanayne haddiin marka isgarabsanno oo nooca aan gacanta isku qabsanno ilaahayna aan run u sheegno ilaahay idinkii biidni illaahi subxaanahu wa tacaala
daalim dambe ma soo dhexgeli doono qoyskan dhexdiisa gacan biraan isaga qaban doonaa meel baanan iska saari doonaa waxayna noqon doonaan kuwa dulaysan oo iyagoo la ciirsanaya meel cidla jooga ay noqon doonaan biidni illahi subxaanahu wa tacaala murtadiin maslaxa reereed ma hayso wax aanan ahayn in gabar la kufsado xoolo dadow la qaato cirdiga iyo sharafka qofka muslimka lagu xadgudbo oo ay hayaan ma jirto maantii waan ka soo tagnay xilligii la dhihi jiray reer hebel iyo reer hebel meeshaanaan isku haysanaa iyo meeshaanaan isku haysanaa maanta waan ka soo tagna walaalayaal dhulkanagii oo dhana gacanta ka baxa dhulkanagii oo dhana cadow haysta gobolka shabeellada hoose meeqa buqcay ka degan yihiin afrikaanka ilaahay idinku dhaarshay meeqa buqcay ka degan yihiin maa la gadoodo maa la kaco may reeraha hadlaan may biimaal ulahooda soo qaataan ay dhahaan cadowgaan kicinayna may dhahaan waa la aamusan yahay waxaa lagu fiirsanayaa wiilashii mujaahidiinta ahayd haddii wiilashii mujaahidiinta ahay cadowgaa intay la daala dhacaan ilaahay uu ku kaalmeeyo meesha inay ka bixiyaanna shaydaana rabo meesha dab inuu ka kiciyo uu dhaho reer hebela inta taagan iyo reer hebela inta taagan shalayna wuu soo bixi lahaa ogow shalay wuxuu u soo bixi lahaa gaalka inuu bixiyo war walaalayaal cuquul ha la yeesho caqliga dib ha loogu noqdo ha la fiiriyo waddankanagii maanta iyo diinka bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa cadow idriis cabdikayrow waxaan halkan ka soo jeedin doonaa heshiis dhex maray walaayada islaamiga ee gobolka shabeellaha hoose iyo beesha bimaal oo ka mid ah beelaha dega walaayada waxaan soo gabagaboobay kulan dhex maray walaayada islaamiga ee shabeellaha hoose iyo waxgaradka beesha bimaal wadahadal iyo falanqeyn dheer kadib waxaa ka soo baxay go'aamada soo socda kow beeshu inay si buuxda u qaadato ku dhaqanka shareecada islaamiga laba beeshu waxay ballan qaaday inay la dagaalamayso ama soo qabanayso ama soo gudbinayso qof waliba oo ka dhashay beesha bimaal oo dhibaato ka geysta gudaha walaayada shabeellada hoose saddex walaayadu waxay go'aamisay inay beesha dib u loogu soo celiyo xoolihii laga qaaday xilligii ay colaada jireen afar beeshu waxay ballan qaaday inay muddo 4 bilood gudahood ah ku keenayso 200 qoryaas oo ah hubkii lagula dagaalamay mujaahidiinta shan beeshu waxay qaadatay inay dhalinyarada ka dhashay beesha ka soo saaraan safka cadowga lagana dagaalamayo shareecada islaamka lix walaayadu waxay amraysaa dadka muslimiinta ah inay kasoo fogaadaan xarumaha iyo saldhigyada ciidan ee cadowga degan yihiin si aanay cadowga dhibaato ugu geysan amaba aysan dhibaato ugu soo gaarin howlgalka mujaahidiinta ee cadowga ka dhanka ah toddoba heshiiska ugu dambeeya waay heshiiska kadib dhib kasta oo ka dhaca deegaanka beesha mas-uuliyadeeda waxaa qaadaya odayaasha beesha bimaal haddaysan usoo gudbinin walaayada islaamiya shabeellaha hoose wabilaahi tawfiiq kanagi iyo cirdiganaga ayaa lagu soo duulay walaalayaal gaaladaasaana haysata oo rabta inay ni ahaanaysato na dulaysato inaan jac iska dhahnaa la rabaa annaga inaan u istaagnaa la rabaa cidda u taagan ee markaa ka hortegaysana inaan garab sinaana laga rabaa diinkan hiilu u baahan yahay moogta diinkan hiilu u baahan yahay hiilu idinka rabaa diinkan isaga ah muslimiinta hiilay idinka rabaan wiilasha mujaahidiinta hiilay idinka rabaan walaalayaal ma aha waxa aan fiirfiirinayno walaalayaal waxaan rabnaa wax allaala iyo wixii godob qoyseed ee jirta ee ku saabsan dadka muslimiinta wilaayada shabeellada hoose degan annagaa idinka qaadanayna inaan idin maslaxayno gogol idin fidinno isgacan qaadaan annagaa qaadanayna idinka ilaahay subxaanahu wa tacaala laakiin yaynan noqonin munaafiq dab uu soo shiday in reero muslimiina lagu kiciyo yaynan noqonin mid qaa'inoo muqdisho fadhiistay oo aanan maslaxana kuu haynin dantaadana aanan garanaynin war uu kuu soo sheego been aad dad muslimiin inaad kullaysid yaynan noqonin gardarro inaad dad muslimiina ku xagxagatid ina alarda lilaahi yuurituhaa man yashaa ilaahay subxaanahu wa tacaala arladan iska leh dhammaantannada waxaan ugu dhaqmi karnaa cadaalad iyo sinaan iyo walaalnimaan ugu dhaqmi karnaa war ballanaa la galay ballan ninka ka baxaana waxaa ku sifoobayso calaamaadkii munaafiqiinta nebi maxamed uu ku tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh annagu ka mujaahidiin ahaan anoo codka xarakada ku hadlayo waxaan idiin ballan qaadaynaa wax allaale iyo wixii aan ballan qaadnay inaan fulinayna biidni illahi subxaanahu wa tacaala idinkana waxaan idinka rabnaa walaalayaal inaad ballanka aad qaadeen uusan soo noqonin sidiisa uu hirgalo
وإلهي عزي يا شرفه إذن دقيها إزدليننا إلهي قعن سريسو إذن سييه هوسا إسو دقينا عيدا بعض هيستان أود بعض هيستان دولتنا وإسلامية هيستان إلهي إذن كل شيء ما أنت واحد هلي كرتان أودياشينا ماشا فردية أنت تصبح دان ولاية يدقما مدة إذن كوكونا وإنت تمادان إن هذا دولان كان قرب إذن كوكونا هاي كالي أرداشنا لسو ديلا oo iyaga ay idin raacaan oo garab idin noqdaan idin la soo dilaan cadowgi bal ay idin kaga hormaraan ay heli kartaan war adoo marka nusrigaas iyo gargaarkaas iyo hiiladaas helaya hadaad isdulayso oo aad dhahdo wiil ardaal oo murtado ilaahay ka furtay jalla jalaaluhu oo jidkaas taagan yaanan waxba ka qaban karin mana aadi kari hadaad dhahdo bilaahi calayk say waxa ku suuro gali kara yaani qofka damiir kale wuxuu ogolaan kara ma aha qofka aqliga leh wuxuu ogolaan kara ma aha walaalayaal marka waxaan leenahay إلهي سبحانه وتعالى توفيق إسدادك هنا وافجيو أديركي ولال وحو يري waxaan rabnaa wilaayadu garab inay idin ku siiso war wilaayadu garab ay idin kugu tahay wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ulay rabbi subhanahu wa ta'ala war fitnada kuma ekaanaysa ninkii shiday kaliya kuma ekaanayso qaa'inkii shiday waa dhaqaajiye waa carxira ama soomu galay ama meel kale uu galay ama magaalo kale uu galay ama qaa'imin qabiil dartiisa ku daboolaya ayuu hoosta ka galay xala raba marka in dadka loo damqanayo odayaalow ay noqdaan dadka muslimiinta ah ee dhibaatada iyo rafaadka uu ku dhacay ina u damqataan idin ka raba waxa ugu damqanaysaan oo ugu hiilin karaysaana waxa waaye daalimka fidnadan keena ina iska bixino ka qabano kaliya wax kala ma ah maalinka shariicada la helay oo ilaahay diinkiisa uu dhaqan galay oo wilaayadka islaamiga la helay ilaahana idin ku dhaarshay Soomaaliinkaasi ma aha maalinka nabadda helay ka hor ma nabada jirtay tii baa la rabaa in lagu celiyo maalinkii nabadda la helay oo khayrka iyo wanaaga uu yimid cadow waa soo istaagay gal meeshuu jiru isaga yimid limaada shalay markii la baaba'ayay oo dhibaatadu ay nahaysatay oo mooryaantu ay nahaysatay oo murtadiinta ay nahaysatay nalooma soo gurmanaynin cidna soo aadaysayna male maanta la soo aaday maxaa la leeyahay Soomaaliya rabnaa inaan kala dagaalamo argagixisada yaa argagixisa ah ninka diinkiisa ku dhaqmay ninkaas argagixisa ah yaa la rabaa marka in la bixiyo meesha laga saaro waxa la rabaa ninka diinka ku dhaqmaa in meesha laga bixiyo oo ardaal ay meesha ku harto ardaal warkooda ma ahana war kala uusan ka dhaadhacaynin qodobka ba iyo ta iyo ja ku haaya aqli kalaba aanan lahayn shalay waxay sheegeen iimaanta waxa ay sheegayaan ay isburinayaan raggaas ay rabaan meesha inay dhigtaan inta dhahaysay qaala Allahu wa qaala rasuulna la dhaho waa argagixiso ma garanaysaan maantay mujaahidiinta iyo arlada tawxiidka looga dhaqmaa ciz iyo sharaf looga nool yahay xaqiiqatan markii dhabta laga hadlo sharaf iyo ciz meeshaasan ku haysanaa nabad meeshaasan ku haysanaa cadaalad meeshaasan ku haysanaa ama inta ka soo hartay waa baaba iyo waxaanan meel la oolin walaalayaal marka waxaan leenahay ilaahay tawfiiqda hana waafajiyo qodobka labaad ee raba walaalayaal inaan dardaarmaa waxay tahay walaalayaal qabiil weyn baad tihiin gobolkan Shabeellada hoosena laf dhabar baad u tihiin dhul balaarana degan tihiin walaalkeeya sheegay inta ay dhibaatada ka dhacdayna in yar oo kooban waa ma fahmaysaa markii in yar oo kooban waa inta dhibaatada ka dhacday war ilaahan idin ku dhaarshay inta yar annagoo wada socono ma islaaxsan karno miya war soo ma islaaxsan karno haddii aan ilaahay u run sheegno wallahi waa islaaxsan karnaa inta yar aad arkaysaan ee sharka ay fadhido waa islaaxsan karnaa haddaan ilaahay u run sheegno subxaanahu wa tacaala laakiin hadday noqoto in dee la dhahun iska dhah hadday noqotona weligeed iyo allaheed waxba noo hagaagi mahayaan walaalayaal marka ummadda muslimiinta ee gobolka Shabeellada hoose degan ayaad ka mid tihiin oo qayb ka tihiin cadaaladda aan ummadda kula dhaqmayno baan idinkana idin kula dhaqmayna xadgudubka aan ummadda ka ilaalinayna idinkana idinka ilaalinayna dadka muslimiinta noola mid tihiin maamulayna xaq iyo xuquuqda nagu leh waxaan rabnaa marka in dareenka uu idin galo oo dadka muslimiinta ee walaalaha iyo dariska aad tihiinna wanaag iyo sharaf lagu wada noolaado cidii xadgudub uu ka yimaado idinka noqoteena iyaga noqdeenana waxaa la rabaa inaan shariicada la tiigsano annagoo isgarabsanayna biidilaahi subxaanahu wa tacaala adigu farha qaadin haddii lagu soo xadgudbaha xadgudbin soo dacwow ilaahay wuxuu ku siiyey rag u taagan imow biidnillaahi subxaanahu wa tacaala annaga cadaaladda waafajinayno walaalayaal jazaakum allahu khayran waxaan rabnaa marka cadaaladda inay sidaa noogu soo noqoto carabi ilka isugu dhow waa isqoomaanay dhahaan Soomaalide haddii daris la isqaniinana waxaan rabnaa inaan calool xaaranno inaan walaalnimo ku wada dhaqnaan rabnaa biidnillaahi subxaanahu wa tacaala akhiiran waxaan idin leeyahay walaalayaal jazaakum allahu khayran waddankayagan maantayto gurmadu u baahan yahay gurmad iyo heelo
waxa aan meelaha aan fiirfiirinayna ma aha warkana waa ka sarreeya meelaha aan fiirfiirinayna wallahi waa ka sarreeya meel dhow aan fiirfiirinayna annaga baashanu meel dheer ay taallaa ilma adeerayaalow taariikhda hadda laga soo sheekeynaya lilahaa reer biimaale taariikhay lahaayeen oo talyaaniga dhulkan ay kula soo dagaalameen oo la garanayay tii allaha idinka dhigo kuwii soo celin lahaa ilaahay ha idinka dhigo subxaanahu watacaala sharafkaas iyo qiimahaas kii soo celin lahaa ilaahay ha ka dhigo ninkii shar wada oo aan ummadan islaaxeeda iyo khayrkeeda aan doonaynin ilaahay ha naga qabto ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa gaal iyo gaalla jireenkiisa inaan beri ka noqono oo ilaahay uu naga baryeelo subxaanahu watacaala waa caqiido saxiixa waa caqiido toosan iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin 24 saac ku haysa haddana waxaan rabnaa mid gaal ah oo gaal xirada kula jira inaan garab ka dhigto ruuxa ma suuragelaysa waxa ma suuragelayso waxaan waa inaan kala soocanno oo aan kala baxno annaga iyo nimanka murtadiinta ah annaga iyo gaalada inaan kala soocanaa la rabaa war wiilkan aabad dhashid haddaa rabtid wiilkaada ha noqdo walaalka ha noqdo adeerka ha noqdo eedada ha dhasha hawaryarta ha dhashee banaanka ka mar hadduu gaalo raacay banaanka ka mar ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu watacaala heshiiskaaska aan galnay kii miro dhala oo ummadda ay u aydo ilaahay inuu ka dhigo subxaanahu watacaala annaguna ka mujaahidiin ahaan biidni illaahi subxaanahu watacaala go-aankaasi waasaan idinla qaadanay waana idinku garab siinaynaa biidni illaahi subxaanahu watacaala inaan ka miro dhalinana waa idinku garab siinaynaa idinkana u socdaala biidni illaahi subxaanahu watacaala meeshaad culays kala kulantaanna idanka ilaahay annagaa idinla gacan saarayne soo sheegta oo soo gudbiya biidni illaahi subxaanahu watacaala walaalayaal marka insha allahu tacaala warkayga intaasaan kusoo koobi lahaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu